gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka habo ku gabraaratada gumaysigu ku dhuunta galabsada humaanta geedkooda bo gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka habo ku gabraaratada gumaysigu ku dhuunta galabsada humaanta geedkooda bo halkan waxa weeyaan geedkan hoos taagnay geedkii ku dhintay maxamed cali ilaahay naxariiste oo dagaalka isagana dagaal gelinay ilaahay naxariistana si geesiga maxamed cali iyadoo faqasta aanu 3 jeer dub kicinay oo taagadaas oo cabal dheer aanu ku foornay ayaa marafraadkii awoodayna saartay iyadoo xuduudka oo dhan iska soo urursado oo dadweyne isugu timi markii dambe markay ilaa 140 baabuur bay haayeen tiknikiyo xamuurba isaga ay naxariistay hoobiye eedin hoobiye 16 iyo gaarigii ahaa shilkaha gaari suuga ayuu riday marna hoobiye riday ilaahay naxariistay gaari waxa ku dhacay hoobiye dabeetana 7 xabadood oo firisa oo jeexaasa ayuu la tagay kadib markii ninkii madaxda naga dhaawacmaan saaray gaari kontonkaara oo burcaan u diray hal saac iyo bar markii aanu dagaalamaynay ayay faqasi naga awood badatay kadib deetana doohan haqayood ayaanu yaacnay iyadoo nin waliba xabada ridayo kadib daanka bari ee magaalada haqayood 17 nin baa ku dhintay oo ninkii noogu weynaa maxamed xiiro 9 jira taayirka la dhacay faqasta markii hore dagaalka inta aanu kicinay 3 niman naga 17 kuna 14 kuna daankaas uu taayir ku maray bebeeg marka halkan waxa weeyaan geedkii uu la dhinac dhigay oo xaafadii macalin qaasinkiina ay tahay geedkii la hoos dhigana kan geesigii maxamed cali wuxuu ku dhintay waa barta